ciidankan ayaa gaaraya 300 askari kuwaas oo isugu jira saraakiil iyo saraakiil ku xigeenno ahna dufcadii koowaad ee ciidanka daraawiishta Soomaaliya waxa munaasabada tababarka lagu soo xiray ka qayb galay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya saraakiil ka socotay AMISOM UN-ka Masar xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale xubno matalaya wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya taliye ku xigeenka hoggaanka iyo tababarada ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Maxamed Garaar iyo sidoo kale taliyaha akademiyadda ciidanka booliiska Soomaaliya Salaad Maxamed Abtidoon ayaa sheegay in ciidankan ay barteen casharro ku saabsan ka hortagga dhagarta maleeshiyada al-shabaab iyo sidoo kale ilaalinta dalka waxay barteen sharciga la dagaalanka argagixisada oo 8 saacadood ah xirfadaha hubka sida loo isticmaalo 14 saacadood ayay barteen wacyigelinta walaaca qarxa si ay abdeed ugu noqdaan waxay barteen 10 saacadood joojinta iyo fatashada gaadiidka iyo guryaha waxay barteen 8 saacadood gargaarka degdega waxay barteen 4 saacadood ay qaateen socdaalka iyo qaabka loo sameeyo traininka ama loo soconayo gaad socodku waxay barteen 4 saacadood wacyigelinta halista argagixisada waxa laga update gareeyay halista iyo waxay qaateen 8 saacadood xiritaanka 300 oo booliiska oo taliyaha ciidanka u furay 6 bishii koowaad haddana shaqo kasta bartay galaasyada gaardiska wax walba runtii guushaas mid aniga korneelka oo taliyaha akademiyada aan qabtay ma ahan waxa qabtay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa qabtay xildhibaan Sikriye Xaaji Ismaaciil oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ku bogaadiyay taliska booliiska qaranka Soomaaliyeed dadaalada ku aadan tayeynta ciidanka taliyaha waxa uu qabtay waynu ognahay intii yarayda uu joogay muddadii yarayda uu joogay waxaan ugu hambalyeeynaa isaga iyo ciidanka booliiskaba shaqada wanaagsan oo ay dalka iyo dadka u hayaan iyo dawladda run ahaantii kor buu u soo kacay muxuu ahaa booliisku sida uu taliyuhu u yimid waan aad baan u daneeyaa muxuu ahaa booliiskii meesha uu marahayo sababtu waxa weeye ciidanka booliisku waa ciidanka ugu facweyn dalka waa ciidanka shaqada ugu muhiimsan ee amniga gudaha taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Cabdi Xasan Maxamed ayaa sheegay in xoogga ay saarayaan dhismaha ciidan qaran oo hanta ammaanka dalka iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed ciidanka booliiska Soomaaliyeed waqtigan xaadirka waaciisa kala duwan dhammaantood isbedel baa ku socda waxaan leenahay ciidan saldhigyada ka shaqeeya ciidan maamul goboleedyada ka shaqeeya ciidan daraawiisha ciidan garmada ciidanka la yidhaaha haramcad ciidanka la yidhaaha RRT dhammaantood iyo kuwo kale waxaa ku socda dhismo habaysan oo loogu talagalay inay hantaan amniga dalka gobolada Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ay 3 sano ay jirtay waxay xoogga saartay dhismaha qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya si ay ugu adeegaan shacabka Soomaaliyeed ayna uga hortagaan falalka guraacan ee maleeshiyada nabadiyadka argagixisada al-shabaab ay u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed Baasha Cali Xaashi raadiyaha TV-ga qaranka iskool Booliisi Muqdisho